مدن المرورين حنا وهذا مركلي برنامج كان مامول باهيوكا قيبتي سدحات أنا اليوم إذن لا تلاقي لنيجا فرسمة وزارة الرمى جذية لسين للدريري دون برنامج جيك ما يكون هذا رانه حتى إلى هيئة لسوق النظام كدولة ده خاصي يا ديردك سارن وجدين كلهم كان جيك ما يبوها إنه نودعنا أفكار كسابسن لسوق إيه وقيم جلوكا قولها الديجان أما قيب هذا وقولها الديجان قرنقاده إنه قرنقادنا فهمك دورك إياه مسؤوليتها قولها دقمة إيه حبناها قولها دقمة ما يسلفير يعني ها أفر كلمة دول أنتوا نصير جود قلنا عشان كان كو هرتا دقمة ما يلك جيدة كلمة الدقمة ما يلك جيدة دقمة وين اللي جيدة قيبكم إيه دول كدولة جولات كونفر قلبات الله حدود أيمن إيه معمول حصاد هير دجان أو إنجونية يا دقمة لهره كلمة لما دولة دهاس ما يلك جيد دولة دهاس وين اللي جيده هيئات ونسم دقمة أما مجارة الله شخصيات قانونية وجددنا أته تو كتل معمل حركة دولة دهاس كونفر قلبه قبل ما اللي جيده قبل وين اللي جيده قيب كوميته دولك دولة جوالات كونفر قلبات أكو كابن دقموين يطولين قالها ديجانك كويني قالها ديجانك نمي قالها ديجانك الدقمة ويكو كوبن يا حمنا لهدار دي أو هدار دين ددوينها ديجانك أما هدار دين إرجع oo matalaas dadweynaha kanool tuulooyinka iyo xaafadaha degmadaas iyo ka koobanta marka golaha deegaanka way leeyahay awood xeer dejin iyo fulin ee dawladda hoose yalay qaab dhismeedka golaha deegaanka si waafaqsan sharciga dawladda hoose sharciga lambarteen dawlad goboleedka koonfur galbeed way ballanqeeyay gobolka iyo gobol waliba isku koobanyi degmooyin iyo tuulooyin gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka jari intii indhin dawladii hore deegaanadaas oo hoos kooyo dawlad goboleedka koonfur galbeed way lahaadeen magacyada iyo hordaan lahaayeen xaduudaga iyo markii hore lahaayeen iyo magaalo madaxdii la ka aqoonsanay yaa sharcigu ka aqoonsaday dhismaha gobolka ama degmooyin cusub ee dawlad goboleedka koonfur galbeed way laha ka saarayeen xeer madaxweyne ku dib markii uu wasiirka hajeedi oo iyo ansaxiyan golaha wasiirada heeraynta golayaasha degmooyinka may lan heerayeen koonfur galbeed lama heer labadaas heer may bashalinaha degma A iyo degma B ama A iyo B yalla shal heeray magaalo madaxda dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo dhammaan magaalo madaxyada gobolada kale way qaadayaan darajada A ya qaadayaan iyo degmooyinka kale ku heer iyo qaadayaan iyo darajada B degmooyinka way darajada ku dhimo ku horay ama darajada kordhi kore kaliya markii la sameeyo qiimeyn la xiriirta tirada dadka ka nool heerka kobaca dhaqaalaha iyo heerka biyowga adeegyada bulshada ee degmadaas tirada golayaasha deegaanka iyo all inferior heerayntii hadduu nahay ku hadalnay tirada xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka la darajada A ama A way buaha 27 xubnood oo walna la kordhiyana waana la qodimo kor tirada xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka la darajada B may buaha 21 xubnood wasaaradda iyo xaqiiqiyaas ku qayb galowka haweenka ee golaha deegaanka qaab dhismeedka dawladda hoose haddii aan ku hadalno saddex qodobka lixaad sharciga
dawladaha hoose lankasaw lambarteen dawladaha hoose may ba weeldadaayna qaab dhismeedka socda golaha deegaan oo heer degme ah ba guddiga joogtada ee golaha deegaanka si guddiga fulinta dawladda hoose iyo guddi hoosaadi iyo guddiyo tuulo oo hoos kooyow golaha deegaanka anta may xooga ka saarana markan doorarka iyo leey golaha deegaanka ee heer degme doorka golaha deegaanka may leeya doorkan ka bileeray ee maamulka degmada ee dhiniga siyaasadda qorsheynta sharciyada ansixinta iyo walaalamada sharciga dawladda hoose ee koonfur galbeed awoodaha golaha deegaanka u siiyay mayba ku mid aha dejiyowka siyaasadda guud ee dhaqaalaha iyo bulshada oo la ka hormariyo degmadaas laba ansixinta iyo baahiyowka ku talabiyowka miisaaniyadda sanadeed ee degmada oo leh dakhli iyo qarash iska dheelitiran doorka golaha deegaanka wali kasii guda jarnaha dhismaha dugsiyada walbarashada aasaasiga ah haan quraanka xanaanada caruurta iyo maamulsha iyo biyowka mushaaraadka macallimiinta wal ku dhigaw dugsiyadaas biyowka dhowrowka iyo howlgeliyowka adeegyada guud sida biyo korontada gaadiidka dadweynaha iyo adeegyada kale ee dadweynaha lanka tala galay kormeerowka hay'ado gaarka la leeyahay oo biyo adeega dadweynaha inta dawladda hoose iyo kuweeladaas awood iyo ka biyaas ay adeegyada sharciga iyo siyaw wali doorkii golaha deegaanka ka dhajarna deegaamaynta doorkii iyo ka leeyahay may dejiyayna naqshadaha deegaamaynta degmada dhismaha iyo maamulka guryaha dadweynaha ee deegaanka lanka tala galay nidaamyowka dhismayaalka cusub iyo haan la cusboonaysiyo iyo haan baahan in la dubiyo dhismaha iyo horumaryowka iyo dhowrowga bilicda magaalada sida wadooyinka jardiinooyinka iyo goobo dadweynaha ka neefsadayaan waana nasku kooyaan walna ka akhrisadayaan dhinaga adeega caafimaadka doorka iyo golaha deegaanka iyo ka leeyahay may buaha daryeelowka iyo dhowrowka caafimaadka guud ee dadweynaha iyo deegaanka gaar ahaan nadaafadda magaalooyinka iyo ka horseedowka cudurrada faafa dhismaha iyo maamulka xarumaha la kaxanaanayo hooyada iyo dhallaanka hollankasaw MCH doorka iyo ka leeyahay arrimaha deegaanka may buah daryeelka xoolo iyo ugaarto horumaryowka beero biyo korontada iyo ilaaliyowka deegaanka iyo ku faa'iideysiga nacfiga deegaanka iyo kalluunka ka horseedowka abaaro nabaad guurka fatahaadda webiyada halista dabka iyo dhibaato kasta oo halista ah dadweynaha iyo deegaanka haddii dhibdhii in iyo ungur badan oo ku shaqeeyaan daadguraynta dadweynaha haddii iyo aafadheeda doorka iyo ka leeyin arrimaha biyaha may buaha dhisowka goobo biyaha oo laga keydiyo ee magaalooyinka beelaha iyo tuulooyinka dhatiyo arrimaha dakhliga mayba ku leeyna khidmad saaradda liisamada ama shartiyada ganacsiga iyo walaalamada ciidan ka mahadsantiin fiirsadowkin iyo dhagansadowkin may baan taa ka afmeeranay barnaamijkii qaybtii saddexaad